sidee ayay ahayd noloshiisa Cristiano Ronaldo siduu ku noqday qof caan ah oo magac iyo maalba ku leh adduunka si aan uga jawaabno su'aalahaas waxaan gudagalaynaa inaan ka hadalno qisada laacibka kubadda cagta ee Cristiano Ronaldo wuxuu ku dhashay jasiiradda Madeira ee ku taala dalka Portugal aabihiisa wuxuu ahaa nin beeraley ah hooyadiisana waxaa la dhahaa Maria wuxuu ahaa Ronaldo mid ay waalidiintiisa aad u jecel yihiin asagoo ahaa yaraanka qoyska magaca Ronaldo waxaa u bixiyay aabihiisa asagoo ugu magac daray madaxweynihii hore ee Mareykanka Ronald Reagan oo uu aad u taageeri jiray Ronaldo waxa uu ku soo koray nolol adag ayagoo qoyskiisa aysan lahayn wax hanti sidaas u badan balse ay la halgami jireen nolosha Ronaldo wuxuu dhahay hadiyadii ugu horeysay aan aabahay ka helo waa kubadda cagta oon ilaa hadda aan ku taaganahay xirfadeeda Ronaldo wuxuu ahaa yaraantiisa mid aad u jecel kubadda cagta waxaana mararka qaar dhici jirtay inuu maalinkii oo dhan kubad dheelo asagoo ka tagi jiray cuntada markuu ahaa 8 jir ayaa aabihiisa ku daray koox caruur ah oo ciyaartooy ah isagoo u ahaa tababare waana halka uu ka soo bilowday sooyaalka laacibnimo ee Ronaldo markay da'diisu gaartay 10 jir Ronaldo ayaa ku biiray koox kale oo uu muddo sanad ah u ahaa kabtankooda waxaa aad u muuqatay in Ronaldo uu ahaa laacib leh xawaare aad u sareeya sanad kadib waxa uu bilaabay inuu u ciyaaro kooxda da'yarta Lisbona kadib kooxo badan oo waaweyn ah ayaa la dhacay Ronaldo bandhigiisa kubadeed iyo qaab ciyaareedkiisa aadka u sareeya kooxaha qaar ayaana isku dayay inay iibsadaan ama ay la wareegaan Ronaldo asagoo 11 jir ah ayuu ahaa laacib xawaarihiisa heer sare ah qaab ciyaareedkiisana uu aad u wanaagsanaa inkastoo yaraanta awgeed oo miisaankiisa hooseeyay dhirirkiisana uusan badnayn haddana waxaa garab istaagay tababarihiisa jirdhiska iyo jimicsiga oo had iyo jeerba dhiirigelin jiray 6 sano kadib jir ahaan waa uu isbedelay Ronaldo asagoo jirkiisa ilaa xad dhisay 17 jir asagoo ah ayuu bilaabay inuu sii wato ciyaaridda kubadda cagta 18 jir markuu ahaa waxa uu bilaabay inuu ka ciyaaro kooxda koowaad ee Lisbona Ronaldo ayaa dareemayay inay waajib tahay inuu ka duwanaado ciyaartooyda kale kooxda uu Ronaldo u ciyaarayay ee Sporting Lisbona ayaa ka badisay kooxda Manchester United ugana adkaatay 3 gool iyo gool halka Ronaldo uu dhaliyay mid ka mid ah goolasha Manchester oo ka caraysan jabka soo gaaray ayaa waxay soo dalbadeen Ronaldo waxaana markaas tababaro u ahaa Manchester Sir Alex Ferguson isagoo dalbaday Ronaldo Manchester United ayaa kula wareegtay Ronaldo adduun lacageed gaaraya 17 milyan oo euro Ronaldo oo ku faraxsan kooxda weyn ee Manchester United ee ka ciyaarta horyaalka Ingiriiska ahna kooxda ugu koobka badan horyaalka ayaa gudagalay tababaradiisa joogtada ah isagoo sii horumarinayay xirfadiisa kubadda cagta Ronaldo ayaa rabay inuu xirto uu ku dheelo lambarka 28 balse ma uusan helin waxaana loo xiray lambar 7 oo uu horay u soo xirtay legend David Beckham oo u soo ciyaaray Manchester kulankiisa ugu horeeyay Ronaldo waxaa la soo geliyay kaambiyada labaad ee ciyaarta asagoo dhaliyay 2 gool halkaasna ay guul ugu soo hoyatay Manchester ayagoo ka adkaaday kooxda Bolton taageerayaasha ayaa u wada kacay oo soo dhaweeyay Ronaldo una sacbiyay wargeysyada ayaa lagu soo qoray inuu Ronaldo yahay mid ka mid ah ciyaaryahanada ugu fiican ee abid soo mara Manchester United sanadkii 2004 ayuu u saftay qarankiisa Portugal kulankiisa ugu horeeyay oo ay la dheelayeen Gariiga balse nasiib darro qarankiisa waa laga badiyay Ronaldo muddo kadib Ronaldo waxa uu noqday ciyaaryahanka ugu mushaarka badan kooxda Manchester United asagoo mushaar ahaan u qaadanayay bishii $700,000 waxa uu kooxdiisa u saxiixay heshiis cusub waxaana loo kordhiyay mushaarka
waxaana looga dhigay $840,000 bishiiba. Ronaldo ayaa noqday gool dhaliyaha sanadka asagoo dhaliyay 31 gool. Sanadka xiga waxa uu dhaliyay 42 gool, waxa uuna ku guuleystay abaalmarinta kubadda dahabka ama Ballon d'Or, wuxuuna noqday laacibka ugu fiican caalamka 2008. Ronaldo ayaa waqti xaadirkan haysta 5 kubad dahabeed ama 5 Ballon d'Or. waxa uu hadda u dheelaa kooxda Juventus ee horyaalka Serie A ee ka ciyaarta Italy. waxa uu kooxdiisa hore ee Real Madrid kula guuleystay koobab badan oo ay ka mid tahay 4 koob oo Champions League ah, waana gool dhaliyaha taariikhiga ah ee kooxda Real Madrid isagoo dhaliyay 450 gool. haddii aad ka heshay muuqaalkan, like dheh, siina share garee, fadlan subscribe dheh channelka, sidoo kalena gambaleelka furo si aad ula socoto muuqaal walba aan soo galino. mahadsanidin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.